Today, I launch the extension of the Berbera Free Zone for industrial parks. This extension shall remain within the framework between Somaliland government and DP World. I do invite for all international investors, wherever they are in the world, to come to invest. We have the land for them. This message is intended for international investors. We assure you, we have the hospitality, we have the land. Please come to invest in Somaliland. لما نحبنا وفدي السعودي مسؤولين تقبل كصاحل يقول الدقيقة كنا كتشرو هي ملاحظة كنا النبي بقول الله كلامه ملاحظة نقانك اللي بعنا هي ملاحظة حسبية وطني بدون يكحيك بين الشوقة مسؤول وينيه دمانتي وين سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبلها أنا صوت وين يا سلام يا جماعة. رنتي فرنت كواد تيسعية ودم بيسبة ويانو ده قبل هو ترتمية. مركا فرنتي ده كواد راح يكون صوتها قبل كسناك. وإن شاء الله وحنكر هرجرين دورة. أجي ورشدها. قبل كسناك مرحبا لنا سيلو سود الدجيو نبض سود الدجي هذا الله يلا رنتي waxaan ku faraxsanahay oo ana mahadnaqayaa golaha deegaanka degmada Berbera inay qorsheeyeen dhulkan aynu maanta ugu talagalnay in laga sameeyo warshadaha mustaqbalka dunidu maanta Soomaaliland way soo jeedaa waxyaabihii la weydiinayay waxa ka mid ah ugu horeeya qofka maalgashiga doonaya inuu dhul helo dhulkiina dhib badan bay naga haysataa meelaha badan oo ka mid ah marka degmada Berbera iyo deegaankeeda waxa laga mahadnaqayaa inay ka suurta gashay dhulka intan leeg in loo kaydiyo maalgashiga warshadaha waxaan kaloo ka codsanayaa in dhulka la reserve u sii diyaarino haddii aan la yidhaahdo gaar ahaan DP World waxaan ka wada shaqaynaynaa si dhulka loo kobcin lahaa maalgashi loogu raadin lahaa marka waxaan fariin halkan uga dirayaa dhammaan maalgashadayaasha dunida jooga meeshay doonaan baa ka joogaan inaanu ku dhiirigelinayno inay maalgashadaan Somaliland oo maanta dhagax dhignay dhulkii aan warshadaha ugu talagalnay aan doonaynaa warshadaha dunida ee ganacsatada wax ka soo iibsadaan inay Berbera yimaadaan oo Berbera alaabta ku soo saaraan haddii aan la yiraahdo waxaan isleeyahay ma foga waqtigaas aynu arki doono warshadaha China ugu tagi jirteen ama Thailand ugu tagi jirteen inay halkan alaabta ku soo saaraan oo aynu ka maarano markabkii 3 bilood sugayay ama 6 bilood sugayay mashruucani wuxuu ka mid noqonayaa mashruuceennii hore ee ahaa Berbera Economic Zone uu ka mid noqonayaa oo loogu talagalay warshadaha marka fariintaan u dirayo shacbiga Somaliland ciddii maalgashanaysa iyadoo maraysa dariiqa sharciga ah waa u diyaar dhulkii waxaan mahadnaqayaa mar labaad degmada Berbera soo dhaweyntiina soo dhaweysay mashaariicdii badnayd ee inoo suurta gashay inaynu dhagax dhigno ama furro waxaan mahadnaqayaa jananada
oo iyaguna qayb ka ahaa wafdigayga Soomaaliya tan noolaato. Assalaamu calaykum.